xaruntii degmada Lughaya waxaanu joognaa iskuulkii magaalada waxaanu dhigaynaa halkan dhagaxa maanta aynu dhagax dhigaynaa oo fulintiisina la socoto oo shirkadii fulinaysayna ay nala socoto inaynu tamargelin loogu sameeyo iskuulka magaalada Lughaya mashruucu ma aha magaaladani waa dhammaan gobolka meelo badan baa ku jira fara badan wadanka oo dhan baa ku jira dhowr iyo 40 xarumo caafimaad iyo iskuulo badan oo dhowr iyo 50 waa wadanka oo dhan weey kullu shirkadii fulintu wayna la socotaa maayarka iyo cuqaasha iyo dhammaan dadka waxa ku boorinaynaa inay ilaashadaan waxaanu leenahay ka faa'iideysta waa solar tayo badan weey baytariyadii oo ah tamarkeedayaashii baa la socda waxaan jecelahay insha Allah inay dadku uga faa'iideystaan si wanaagsan uga faa'iideystaan ilaashadaan kullay shirkadu waa shirkad caalami ah ma aha degmada Lughaya dhamaan waxay fulinaysaa mashaariicda World Bank ee xarumaha caafimaadka iyo iskuulada fulinayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah iyaguna inay waafajin doonaan requirements-kii ama wixii looga baahnaa marka aad baa u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta cuqaasha iyo macallimiinta iskuulka hoose dhexe ee Lughaya iyo bulshadaba maanta halkan waxaan ka dhagax dhigaynaa mashruuc tamareed oo iskuulka hoose dhexe ee magaalada Lughaya kaasi oo loo sameyn doono system solar ah dabooli doonana baahida iskuulka iyadoo looga faa'iideysanayo ardaydu maraxwadana ku isticmaali doona maadaama ay tahay magaalo kulul kombiyuutarana ay ku isticmaali doonaan korontada loo rakibay ay tahay koronto baahidooda dhaboon doonta imika iyo mustaqbalka soo socdaba maanta oo bishuna 9 tahay Abriil 2026 waxa kale oo la socda dhagax dhigan wareejintii shirkadii shaqadan qabanaysay oo imika la wareegaysa iskuulka sidii uga qaban lahayd ee u fulin lahayd mashruucan halka laga fulinayo ujeedada muxuu ahaayay dhagax dhigan intaas uu daaran yahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan la dhagax dhigayaa mashruucan isboonsiinta korontada oo lagu xidhay dugsiga hoose dhexe ee Lughaya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta oo runtii maanta suura geliyay arintani waxaan maadaama aan xeeb joogno dugsiyadan xeebta ku yaalo oo dhani sanad dugsiyada waxay ka dambeeyaan iskoolada 2 bilood ba ka go'an oo bisha shanaad waxay deenay imtixaanka laga qaadayo way dareeraan tobnaadna way soo galaan labada biloodba waxay ka go'an yihiin cimilada kuleylka awgeed ba saamixi weydayna dhigtaan waxaan suura gelinaysaa inaan waqtigii la qaadano waxbarashada ee sanad dugsiyadkii caadiga ahaa marka muraaxada aan ugu xidhno runtii waxaan aad baan uga mahadcelinaynaa waa waxtar weyn weeyaan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waana ilaashan doonaa Ilaahay